kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan qisada jacayl ee labada fanaan Sulfa iyo Aamina Cali Jiisow. Aamina Cali Jiisow oo kamid ahayd hoballadii kooxda Iftiin ee wasaaradda waxbarashada iyo hanuuninta dadweynaha oo ku looqeysay heesta mashxarad ayaa jacayl daran u qaaday fanaanka weyn ee Cabdullaahi Maxamuud Jimcaale Sulfa. sanadku waa horaantii 1980kii. Aamina xilligaas fanaanad ma ahayn, laakiin maadaama ay jeclaatay fanaan ayna adkeed in qof fanaan ah si fudud lagu arko, ayay isla markiiba go'aansatay dariiqa kaliya ay ku arki karto Sulfa inuu yahay inay noqoto fanaanad. Aamina qayb ayay ka noqotay kooxdii Iftiin markiiba, waxayna isbarteen ninkii ay muddada doonaysay oo markan waa isku koox. halkii ayaa la isku bartay, la iskana jaan qaaday. Sulfa wuxuu u muujiyay Aamina inuu la qabanayo jacaylka, kuna qanacsan yahay inuu xiriir heer mustaqbal ah la yeesho Aamina, laakiin wuxuu shuruud adag uga dhigay inay fanka ka baxdo haddii ay doonayso xiriir mara dhala. Aamina markii horeba fanka waxay u soo gashay jacaylka ay u qabto Sulfa, shuruudiina way ka aqbashay, waxayna hakisay fankii iyo shaqadii ay u haysay kooxda Iftiin si jacaylkoodu ugubka ah uusan meesha uga bixin, isla markaana ay u hesho riyadeedii ahayd inay nolosha la wadaagto Sulfa. nasiib darro, Aamina sidii ay ka rajaynaysay Sulfa ma dhicin, oo waxa ay dareentay cagajiid iyo inuusan daacad ka ahayn xiriir wanaagsan oo Aamina la yeesho, isagoo ballamo badan uga baxay isla markaana oofin waayay ballantii ahayd xiriirkooda inuu miro dhalayo haddii ay fanka joojiso. Aamina markan jacayl iyo fanba midna ma hayso. ninkii ay jecleyd fanka dartiisna u joojisay kama uusan soo dhalaalin kaalintii laga rabay, waxayna hori weysay inay go'aan qaadato, naftana ka xakamayso jacaylkii ay u qabtay Sulfa. markan fankii ayay dib ugu soo laabatay. Aamina waxay xiriir hoose la yeelatay nin la sheegay inuu ahaa shaqaale dowladeed, kaas oo markii dambe meher dhex maray, laguna ballamay in taariikh hebla la guri geyn doono, waxayna warqadii meherka u dhiibtay hooyadeed si ay ula socoto xaaladeeda. muddo kadib waxaa iscelin waayay Sulfa oo horay u dayacay gabar dartiis fanka u joojisay, jacayl daranna u qabtay. Sulfa oo aan war ka haynin meherka Aamina ayaa odayaal doona gabadha u soo diray qoyskeeda. odayaasha waxaa ka mid ahaa muluxamiistaha weyn ee Cabdikariin Faarax Qaarey Jiir. odayaasha markiiba waxay abaareen guriga ay ku nooleed Aamina, waxaana soo dhaweeyay oo la fariistay aabaheed iyo qaraabo kale oo ay u sheegeen ujeedka ay ugu socdeen iyo in ay doonayaan gabadhiisa Aamina. laakiin inta uusan jawaabin Aaba Jiisow ayaa gabadha hooyadeed oo aan ka fogeyn goobta odayaashu ay fadhiyeen la soo booday warqadii meherka gabadheeda Aamina, gacantana u gelisay aabaheed iyadoo tiri, gabar la qabo miyaa meher kale qabtaa. halkaas ayay odayaashii ka socday Cabdullaahi Maxamuud Jimcaale Sulfa ku kala dareereen, waxaana markii ay dhacdadaas dhacday hees ka sameeyey abwaanka weyn, barbaariyihii weynaa abwaan Siciid Saalax Axmed. heeskaas oo halku dhigiisu yahay mashxarad, isla Aamina Jiisow ayaana ku looqeysa ereyada heestana waxaa ka mid ah. Maya,
sulfa ayaa ka soo jawaabay heesta mashxarad isna waxa uu qaaday heesta jacaylka wadaan lahaa waxayna jawaab u tahay heestan aad hadda maqasheen ee mashxarad وشذبان لها ولكن من كان لها جعلك وذان لها وشذبان لها ولكن من كان لها